mudan Ismaaciil Cumar Geelle su'aasha ugu horreysay ku weydiinaya waxa weeye doorashooyinkii baarlamaanka ayaa Djibouti imika ku soo foolle ololihii baa dhawaan bilaabmaya sidee hawshu u socotaa haddii tore yani waxa aan noqonay dad yani bartay doorashada oo markii gaalku joogayba doorashadaasi way iska jirtay habka dee annagu imika aan u shaqaynana waxa weeyaan axzaab badan oo kutlado samaysta haddii kale xisbi kelidiisa hadduu dhigto siduu wax u helaa way adagta kolka majority yani aqlabiyadda ha lagu helana kelideed waxay keentay inuu mucaaradba ka baxo suuqa sharci kalaan sameynay bartankii kolkaan soconno oo doorashadii 2013 waxaan ka dhignay bay ahayd in proportional laga dhigo oo si ay u suurowdo in ay mucaaradkuna uu soo gali karo kolka afar xisbi baan yaa qolada aqlabiyaddu ay iskugu tagtaa ragga kalena 2 waan u malaynayaa sanadkan inay sidan saadaashu ay tahay kolka yani ololaha iyaguna maaha kani ingiriiska iyo maraykanka ee sanadka soconaya anagu waxaan u xadidnay 15 cisho inuu xisbi waliba waxa uu dadka u hayo barnaamij ka dhaadhiciyo dadkiisa urursado miyi ugu tago magaalo ugu tago yani oo wixii uu heli karayo uu kolka ku dadaalo ujeedada ugu weynayna waxa weeyaan wax walba inay jawi wanaagsan oo nabad ah 15 cishana nin walba wuxuu doonayo uu yiraahdo oo waxaan rajaynaynaa in dee aqlabiyad aan ku sii wadi karno howlaha in ay ka soo baxdo oo noo asmaxda inaan barnaamijyadeena xagga sharciga aan si fiican ugu fulin karno marka xisaabtiina xulafada imika xukunka haysa doorashadan maxaa ka filaysaan maxaa ugu weyne ay soo kordhinaysaa baad isleedahay waaniga kuu sheego waxaan isleenahay in yani dimuqraadiyadda adkeynteeda hortaba talabaadna in aqlabiyad aan helno noo asmaxaysa in aan yani sii wadi karno barnaamijyada horumarineed iyo sida yani wadanka maamulkiisa loo sii fiicnayn lahaa waxa aan maqashay baan u malaynayaa in aan dharaadhaweed baarlamaanku uu ansixiyey sharci odhanaya haweenku 25% inaanu ka yaran qaa'imad kasti ama liist kasti oo la soo dhigo waa inay tirada haweenku noqdaan 25% ugu yaraan waa laga badin karaa laakiin halkaa inaan sharcigu uu leeyahay inaanan hoos looga dhicin dadkeenna waa taqaanaa oo gabadhu aqalka ay fadhido ama imika hadday xafiis tagtana waxba maaha laakiin siyaasaddii waxa inay u soo dhowaan bay yidhaahdaan laakiin sidee waa inaan riixnadii 10 baan ahayn 25 baan ka dhignay waxaan jecelnahay inay iyaga oo 60% dalka yani dadka ah iyaga oo iskuullada dhowr iyo 50 ah jaamiciyiinta inay 60 dhaafeen baa laga yaabaa marka in dee doorkoodii ay qaataan mas-uuliyadoodii ka soo baxaan xilkoogii gutaan wadanka maamulkiisana ay shuraako aan ku ahaano ayaan doonayna mudane madaxweyne
arrintaad sheegtay saami qaybsiga haweenka la siiyey waa wax ku cusub jamhuuriyadda Jabuuti iyo guud ahaanba gobolkan ma kula tahay in lagu wada qancayo waa ila tahay dadka haddii dee la hor soconi waayo waxaa la yidhaahdaa dadka waa loo guuray looma godayo yani waxaan u jeedaa kol haddii aad leader tahay inaad dhaqaaqdo oo magaranaysaa aad tusto yani baahida loo qabo in yani isbedel uu yimaado oo yani shalal baan anagu u arkaa in haddii haweenka laga saaro mujtamaca siyaasiga iyo dhaqaalaha haddii laga saaro wadanku inuu yani barbaktiisan yahay ayaa la moodaya marka waan u baahannahay yani kartidooda waan u baahannahay caqligooga waan u baahannahay nashaadkooga ama firfircoonidooda yani dee inay nala qabtaan wadanka ayaan doonaynaa taasna waxaan u malaynaya dadkeenna way diyaar bay u yihiin madaxweyne bishii hore waxaa idin soo booqatay haweeneyda madaxda ka ah laanta ama sanduuqa lacagta adduunka IMF waxaanay ahayd booqasho aad iyo aad sidaan qiyaasay muhiim idinku ah maxaa ugu waaweynaya ka wada hadasha horta waxay u timiday ziyaarada shaqo waxaa ka badnaa ziyaarada shaksiga ayaa ka badnayd maxaa yeelay saygeyga ayaa halkan xidid ku leh dad ay qaraabo yihiin ayaa halkan degan oo yani reer dee 1800 kolku sanadku ahaa yani raggii ugu horreeyey ee wadanka yimid oo ganacsato ahaa yaa caruurtii dee awowga u ahaa yaa dhalay yani saygeeda oo isagu u yaqaanay wadanka kolkol buu yimaadaa maanta se waxay is yidhaahdeen maca christmaskii aan soo booqano eheladeediina aan soo booqano taasna way ahayd baddana aad bay u jeceshahay oo baddana way u timiday inay quusto kolkaa haddana dee annaguna waan ka faa'iidaysanay oo waxaan dabacnay inaan bal ay sawirkeeda aan helno wixii aan ay nagu dhaliilayso ama ay anagu dee dadka dowladaha barnaamijyada laleh ma nihin oo beri horaan yaan nidhi haddeed waan weynaanay kolkee 3 barnaamij aan samaynay ayaan nidhi naga joojiya haddaba yani cidhiidhigan dadka aad ku qabanaysaan anagu waan imanaynaa sanad walba meesha laakiin waxaan nitusaynaa in ma garanaysaa anaguba aan isxakamayn karayno oo shaqadeeda aan wadan karayno wayna timiday wayna aragtay waxbaa dee kolleyba ma daynayaan yani ururadaasi inay wax kaa sheegaan waxay sheegayaan anagu wax dee aan cuqdad ka qabno ma aha oo dee waxa aan kolka lagu leeyahay war dadkaaga wixii ay kugu lahaayeen ma siisid ama uma samaysid lagu leeyahay dee ma isagaa iga xiga wadanka dadkayga igama xigi karo inaan dee tuso inaanan yani waxaan hagranayay aanu jirin inaan tuso unbaan doonaya oo dee aanan isku mujtamacna ahayn yani raggan iyo cadcad oo waxa ay dusha ka tusayaan dadka mooyaane meel walba waxaad ku aragtaa dad yani derbi jiifa waa lagu arkaa kolka waxay odhanayaan yani horumarka iyo kobaca dhaqaale iyo ismale sida aad yani u muuqataan oo yani faqrigii weli uu jiraa bay leeyihin meel walba faqrigii uu jiraa laakiin annagu wixii dadkeenna uu u baahan yahay ka shaqaysta ka aan shaqaysanin ka buka ka agoomoobay ka xanuunsanaya ka ma garanaysaa ay
wixii uu xaq u leeyahay uu dowladda ku leeyahay dee kolkaad eegso miisaaniyaddana waxaa arkaysaa in wax iyaguba uu xagga socialka ugu badan yahay. mudane madaxweyne haddaan halkaas su-aalkaasi weydiiyo arrinta aad ka dhawaajisay in IMF ay soo qaadeen qolyaha mucaaradkuna way tilmaamaan oo waxay yidhaahdaan horumar muuqdaa jira laakiin ladnaantii dadka ma wada gaadho inkastoo aad sheegtay waxyaabaha dowladdaadu ay qabatay ma kula tahay eedda inay wax ka jiraan? anigu waxaan qabaa in dadka odhanaya ma gaadho nicmaddu ma gaadhayso dadka odhanayay ama waa xaasid ama waa mooge oonan waxbuu moog yahay uunan garanayn. waddan aanan macdan lahayn, aan betrol lahayn, aan warshad lahayn, aan beer lahayn, ummaddiisaas siduu u gaadhsiiyo iskuol yani 7 jir 6 jir ilamaan 16 jir oo lacag la-aana hala ii sheego, hala ii sheego waddan caafimaadka yani iyo fayadhowrka gaadhsiiya waddanka oo dhan oo yani inta yani tuulo walba inay yeelato dhakhtarkeedii waa kow. talabaad in yani dadka aanan shaqaysanin universal maxaa la yidhaahdaa care loo sameeyo oo kaarta aan siino oo bilaash isku daweeyaan ee magaalooyinka jooga. dadka miyiga joogana sidaas oo kale in aan ku soo wareejino waddanka dhammaantiisa wax alla wixii yani specialist ahaa takhasus lahaa oo dhan, indha ha ahaado, ilka ha ahaado, yani wadna ha ahaado, meeshii uu iyagii oo kutlad ah oo duuban in ay waddanka tuulo walba soo maraan oo dadkii ay soo ururiyaan halkaa ku daweeyaan oo ay soo noqdaan. hala i tuso yani dadka aanan kici karin ee buka ama faqrigu uu qabsaday aanan shaqaysan karaynin ya annagu wixii aan itaalkeena ahaa waan ugu geynaa meesha ay doonaan baa joogaan. marka inta aan yani ciidan iyo diyaarado xarbi aan lacagtaas gelin lahayn waxaan gelinaa dadkaas. mudane madaxweyne waxaad tilmaantay in khayraad dabiiciya oo badan Jabuuti aanay lahayn laakiin sida dad fara badan ay ka warhayaan Jabuuti ilaahay wuxuu u barakeeyay halkay ku taalo dekado fara badan ayaa waddanka Jabuuti ka samayseen. intii xukunkaad haysay dadka arrimaha Jabuuti ka faallooda waxay tilmaamaan inkastoo dadaal fara badan uu jiray in haddana waqtigu idinla shaqeeyey hadday noqoto muranka Ethiopia iyo Eritrea, hadday noqoto arrimaha burcadbadeeda arrintaasi wax ma ka jiraan? waa laga yaabaa inay wax ka jiraan laakiin aniga waxaa la ii weydiiyey ummaddaasi in aan ka kiciyo halkaasoo aan u guuriyo nolol yani kariim ah aanu raro yaa la iga doonaya. meesha aan doonayo aan u adeegsado, dadka aan doono aan u adeegsado, laakiin inaan wadada yani horumarka aan ku gaadhsiiyo nabad, aan ku gaadhsiiyo deganaansho, aan ku gaadhsiiyo ma garanaysaa in ay yeeshaan hanti ay hadhow kelidood u noolan karaan. waktiguna waa laga yaabaa inuu na saaciday laakiin waxa loogu soo hiranayayna wuxuu yahay meesha aad sheegtay ee ilaahay ina dhigay. waxaan idhaahdaa uu og yahay ilaahay dad meel intuu dhigo un bilaa yani waxay ku noolaadaanna kulli meel buu dhigayoo habkeediina isaga umaana tusi baan idhaha. kolka waxa dee aan ku talagalnay maxaan ka faa'iidaysan karnaa meesheennan baa ayay macdanta ku jirta, iyadaaba macdana baan idhaha.
waynu u iman doonaa arrimaha gobolka gaar ahaan kuwa Soomaaliya laakiin haddaan su'aal kale ka weydiiyo boqcadda ay Djibouti ku taalo mudane madaxweyne waxa kaloo caalamka oo dhan aad looga hadlaa maanta ina halkan isugu keenteen Mareykankii iyo Faransiiskii hore u joogay iyo Shiinihii iyo wadamo fara badan oo Japaaniisku ka mid yahay ciidamo kale oo dalal kale ka socdo iyaguna hawlaha burcadbadeeda iyo la dagaalankeeda u jooga marar fara badanna wadamada danahoodu isma waafaqsana ama waa kala duwan yihiin sideeba waxaasoo dhan uga dabaalataan waxaan tusnaa uun annagu in aan wadamada hata wada socono ayaguba yani wadankoodii meel ka dheer kolkay ciidan keenaan ay masruuf ku siiyaan waxa weeyaan ujeeddaa jirta ujeeddada jirtayna waxay tahay in la nabadeeyo ama la ilaaliyo argagixisada laga ilaaliyo in danahooga waxaa yani jiidda maraya oo dhan yani waa lacagtoodii waa dadkoogii in yani ay u soo dhowaadaan si ay uga qaybgeli lahaayeen nabadeynta geeska iyo nabadeynta baddani cas iyo nabadeynta Indian Ocean kol haddii objectivekii ama yoolkii uu yahay mid quraat waxaa dee dantu tahay in halkaa la isku afgarto kolkay xaggooga joogaan inay isriixriixaan inay ishirdiyaan yani ayagay u taalla laakiin xaggeenan waxaan wada leenahay un hadaf mid ahaatay oo ah inaan nabadda ka wada qayb galno arrimaha gobolka markaynu u nimaadno madaxweyne khilaafka khaliijka ayaad moodaa inuu saameyn ku yeelanayo iminka gobolkan hadday noqoto xagga Soomaalida hadday noqoto xagga Eritrea iyo Ethiopia iyo Suudaan la fahanteeda warwar intee lag baa arrintaa ka qabtaan maadaama sidaynu ka warhayno Yemenna qaxooti fara badan oo idinkaga yimi oo dee xaggana aad isaga dhowdihiin waxa uu arrinta noogu kululay waxa weeye tahay Yemen anagu coalitionka ama xilfiga mamlakadda Saudi Arabia ay hogaaminayso waan ku jirnaa Djibouti haddana maxaan u aragnaa in ma garanaysaa Yemen wadan qaali nagu awey wadan aan jaarnahay wey wadan dadka degani ay iyo kuwa reer Djibouti ah oo naga midihi ay xidid ku leeyihiin wey aanan sina u kala maarmi karin 20 kiilo baa noo dhaxaysa badda kolkaad waqooyigeena aad joogto way ku muuqataa magaalada la yidhaah marka dee dhibaatadeedu wayna taabanaysaa oo qaxooti badan baa ayaa nala jooga dharaar iyo habeenna waa yimaadaan waxaase dee noo muuqata in ayaanta dad yani arrimo diineed la siyaasadeeyey keenay in ma garanaysaa ay dhibaatooyin fara badan ka soo baxeen oo yani keenaya in halisba ay nabadgelyadii Sacuudigu uu galay iyo nabad sugideedina ay dhibaato weyn yani la kulmeen intaa dee sidii aan yani uga qaybgeli lahayn nabadeynta ama alaabtaasi loo joojin lahaa inay dadka Yemenidu iyagu ay arrinkooga gacanta ku qabsadaan wixii lagu gargaari karayna lagu gargaaro iyaan u soconaa ta kale yani hadalka inta badan soo baxaya iyo xaqiiqadu waxay tahay ilaa maaha aniga inay waxaa imika Suudaan iyo Ethiopia iyo maxaa la yidhaha Masar iyo la sheegayay waa mujarad yani hadal mooyaane anigu marka wuxuu warwaro arrinta idinka haya ima muuqato
Ma jiraan. inaa dagaal yani la iskula imanayo dano biyaha ku saabsan oo weligeedba jiri jirtay weligeedba Ethiopia iyo Masar weligeedba hadalkaas u dhex socon jiray hadalkii baan u malaynayaa laakiin ma aha wax dhibaato ah arrimaha Soomaalida markaynu u nimaadno ciidanka Jamhuuriyadda Djibouti waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM ee midowga Afrika wadamada qaarkood ba hadal haya ama bilaabayba in ciidamadoodii ay kala baxaan Soomaaliya oo mas'uuliyadda ammaanka lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya ma kula tahay waqtigu inuu yahay mid ku haboon in ciidamada AMISOM ay Soomaaliya ka baxaan way la tahay aniga haddii ilmihii uu koro waqtigii gaashaanka loo dhiibi jiray la yiraahdo weli qaangaar ma ahayn halkaa una joogano waa mushkilad weyn de maanta dadkii nabadan diidanaa dhibaatooyinkii la gaarsiiyey waxay keentay in ay hoos u dhacaan oo haddeed wax ma garanaysaa ilala dhuumanayo oo ama geeriyaa yar ama maxaa la yidhaahdaa walxahan qarxa uun lagu camal falayo mooyaane ciidanka ka hortagi karay aanu jirin ama uu sii yaraanayo yani dowladdu iyo dowladaha AMISOM ku jira iyo kuwa kale sida Turkiga oo kale ah waxay dadaal weyn ayay geliyeen sidii ciidamada Soomaalida loo nooleyn lahaa loo qalabeyn lahaa yani wax badan way maqan yihiin laakiin maanta way karaan in ay yani maamulaan yani difaaca ileen dowlado la dagaalamaya ma jiraan oo diyaarado iyo taankiyaal iyo wax lama jiraan intaas nabadeynta wadankase military iyo booliis ba hadday iskugu tagaan inay xasilin karayaan ayaan anigu qabaa bilowgiina sidaan baan oran jirnay anagu dadaalkeenuna annaga ugu yar dadka annaga ugu ciidan yar laakiin ujeedadeennu waxay ahayd ay maantana tahay in loo sii dayo shay-an fa shay-an looga baxo oo dee la tababaro halkan qaar aan ku tababarno iyo Soomaaliya dhexdeedaba inaan ku tababarno way jiraan karaamadana waxa u wanaagsan in shacbiguba uu arko ciidankiisii oo isgarab taagay oo la socda oo ilaalinaya inay arkaan in badan bay ciidan shisheeye la noolaayeen maanta sidee waxaan u maleynayaa in waqtigeedii tahay in dee yani dhaqaale wixii la siin karayana laakiin waqtigan xaadirka markaynu ka hadalno mudane madaxweyne iyadoo ciidankii AMISOM oo dhammaystiran uu joogo ama in yaroon waxba ahayn laga dhimay ayaa haddana dhibaatadii nabadgelyo darradu ay meelo fara badan ka jirtaa sidaynu ka war haynana dhul fara badan ururka al-shabaab baa weli ka taliya dadka arrimaha Soomaalida ka faalloodaana waxay tilmaamaan in shabaab fursadda ay sugayaan ay tahay in ciidanka AMISOM ay meesha ka baxaan dabadeedna iyagu ay kaalintaa buuxiyaan ma ku muuqataa in dhibaatadaasi ay mar kale noqon karayso mid bilaabanta annaga waxaan ka yaabanahay haddii gaadhi yani walxaha qarxa la dhigay meel uu qarxo dadka yani wax ku noqdayna ama ha yaraadaan ama ha bataane ciidan shabaab ahoo dagaal ku jira oo meeshaa joogay ma joogaan qofkii dee meesha ku jiray oo isdilaya oo meesha yani ku dhex jira mooyaane cid kale ma jirto miidiyahana dhexdeenna aan sheegno dhibaatadiisu waxa weeyaan sidii raggan gaaladu ay u shaqaynayso ayay u shaqeeyaan bay ila tahay aniga marka dee uu ninka yani wariyuhu uu sheegayo ciidanada buu odhanaya shabaab buu odhanaya waa argagixiso ma odhanayo ma yaraynayo dagaalkii terrorismiga lagula jiray uu ka hadhaya taasna
dhibaatay keenaysaa oo ummadiibuu yaa jaahwareeraysa cabsi rucbiba kolkaasaa lagu tusayaa sawir ay darees qurux badan sitaan oo ma garanaysaa ay rasaastii ay ka badatay ciidankii soomaaliduna wuxuu leeyahay xabad uu leeyahay kolkol laakiin waxaasi sawir mar la qabtay unbaa de lagu soo celinaya si waxay maanta bilaabayaan oo kale ma garan oo dee yani kartidiisii argagixisada kartideedii dhammaanteed ay u dhan tahay iyo xooggeygii iyo itaalkeediiba marka taasna annagu waxaan leenahay halkaa laga ilaaliyo wax ay ka taliyaanna aad buu u yaryahay waxa weeyaan ambiskaad meelo yaryar oo ay yani ilan askartu haddii loo baaho dhib bay tahay inay wada gaadhaan dadka laakiin ma jiraan yani wax quwad lagu tilmaamo oo maanta ka celin kara inuu ciidanka Soomaaliya uu kelidii uu shaqada gali karo markay noqoto hoggaanka siyaasadda Soomaaliya Djibouti ilaa intii burburku dhacay marba waji ay lahaydba arrimaha Soomaalida way ka qayb qaadanaysay maanta sida wax u wadaan ma ku qanacsantay anigu shakhsiyan waan ku qanacsanahay maxaa yeelay waxa weeyaan madaxweynihii Masaad carta dabadeed waxa dee 4 sano laga dhigay awal 5 bay ahayd baan maliyay bilowgii 4 baa laga dhigay Mareykan baan idhaa kharashka ku baxaya yani isbedelka 4 sanadood ba yani mid loogu celiyana ma jiro 4 baa la yiri taasina de wax stability iyaanan على الأقل هذه مريكان اللي هنا لبا جور أي مريكان كو مدحوينياش أي جوجان لكن سدا أي أطلع بسدين مدحوينهن أما حكومة دنيتي كورسوا يعني أنا حقي ودادي توسنيد دad kana aanan midna ka tagaynin soo wada dhaweynaya maxaa la dhahaa maamul goboladiina ay nin waliba shaqadiisii imika uu ku soo dhacayo yaa muuqato annagu waan midna kama hadhayno oo wada garab joognaa gebigoogaba dhowaan waxaa Djibouti booqasho ku yimi madaxweynaha cusub ee la doortay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi maxaa cusub isaga ka wada hadashaa waxaa cusub de waxaan ka wada hadalnay inaan hawsheeni yani wada qabsigii isagu de nusna waa nin ku koray Djibouti wey oo waxaan de yani waa nin fahmaya yani munaadilna ahaan jiray jiidanna yaqaanay wadankana si fiican aanan ka bixinba wadanka waxa uu niyad samidiisa iyo dadaalka uu doonayo inuu galo Allah la qabtay annaguna waxaan istusnay de inaan la shaqeynayno wixii aan wada qabsan karayno aan wada qabsano aad iyo aad baad mahadsantahay madaxweyne intaasna waxa ku dhan waraysigan gaarka oo telefishinka Universal ay kula yeesheen madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle magaalada Djibouti waraysigana intaas ku dhan yahay nabadgelyo